codadka tirintoodii ayaa lasoo gabagabeeyey dhammaan waddankan turkiga walow aysan weli guddiga sare ee doorashadu aysan ku dhawaaqin natiijadii kama dambaysta ahayd balse wararka hadda soo baxaya maaragtay codadkii la tirinayay ayaa waxa guushu ay raacday sida la sheegayo waxa weeyaan ama wararka ugu dambeeyey ay sheegayaan qolyihii u codaynayay oo waxa ay ku guulaysteen natiijo aan saas uga fogeyn kuwa kale ee u codaynayay mayada oo waxa ay natiijadu tahay waa 51 wax yar ayaa ka sareeya marka waxa weeyaan wadooyinka waddanka Turkiga Istanbul in kala hadlayo wadooyinka waxa isugu soo baxay dad aad u tiro badan oo u dabaaldegaya natiijada iyo guusha ay gaareen codkoodii waxa uu u gooyay waxa weeyaan caawa kale waxay ahaan jirtay magaaladan Istanbul iyo guud ahaanba waddankani habeenaha ugu dhaqdhaqaaqa yar oo maanta kale oo weekend ahayd ama axad ahayd oo fasax ahayd iyo berri oo shaqooyinkii loo dareerayo marka caawa aad ayay u khilaafsan tahay sidii uu ahaan jiray waxa macnaha waxay u dabaaldegayaan natiijada miya waa taageerayaasha madaxweynaha waa taageerayaashii madaxweynaha ayaa dabaaldegaya madaxweynuhu dadka shacabka ayuu u hambaliyay si gaar ah wuxuu ugu hambaliyay maxaan ku yiraahdaa hogaamiyaasha siyaasadeed ee ku garab istaagay xaaladan adag waxa sidoo kale isaguna ka hadlay hogaamiyaasha xisbigan taageersanaa oo qaybo kamid iyaguna ay hadleen oo shacabka ay ku amaaneen codkoodii ay dhiibteen uguna hambaliyeen guusha ay gaareen Bashir tirada boqolkiiba 51 iyo xoogaa ayaa xisbiga xukunka haya aka u helay aftidanina waddanka waa lagu kala qaybsamay tiro intaan la egma la filayay inay diido dastuurka cusub cabdinuurow wararka horudhaca barihii ugu dambeysay la shaacinayay ayaa aan aad uga fogeyn natiijadan soo baxday oo inta badan waxay sheegayeen ilaa 52 ilaa 51 meelahaas la filayay sababta ugu weyn waxa ay tahay qoryaha ka soo horjeeda ayaa dad tiro badan oo xisbiye kala duwan ayaa mucaaradsanaa aragtidan oo haada ah waddankana dhanka bari iyo koonfurta iyo galbeedka intuba waxay magaalooyinkaasi u badan yihiin qolyaha may ku codeeyay sidoo kale magaalooyinka waaweyn oo la filayay in ay xisbigan talada haya ay ku guuleystaan ayaa qaybana la ismari waayay qaybana qolyaha mayadu ay ku guuleysteen balse isku soo duuduubo natiijada ayaa waxa ay tahay guushii in ay ku gaaraan qolyaha haada u codeynayay saas uma badna codka ay ku guuleysteen laakiin saadaashu aad ugama fogeyn cabdinuurow sababa jira awgood tan ayaa noqonaysa maxaan ku yiraahdaa afti dastuur loo qaado tii ugu xamaaska iyo maxaan ku yiraahdaa muhiimada badneed dadkan shacabka ah hadda ka hor waxa la sameeyay ilaa iyo 6 mar oo hore ayaa loo codeeyay dastuurka in wax laga bedelo 5 kamid hore ayay u guuleysteen halka mid kamid ay fashilantay tani waxay ku noqonaysaa markii lixaad dastuur in wax laga bedelo cod loo qaado tii ugu weyneed ee ugu muhiimsaneedna way noqonaysaa sababtuna waxa ay tahay system habka uu waddanku ku socdo oo dhan ayaa wax laga bedelayaa marka dadka codeeyay haada ayaa caawa farxad aad u weyn ku ciidaya waa guulo ayay u tahay halka qolyaha kale aysan aad ugu qanacsanayn oo yani maxaan ku yiraahdaa yani ay guuldarro ku noqonayso natiijada haddii saas lagu shaaciyo ay haddana ay tahayba walow aysan qolyaha sare hadda aysan toos ugu dhawaaqin aad iyo aad baad u mahadsan tahay Bashiir Macallin oo Istanbul khadka Skype-ka ku jiray oo nooga waramayay natiijada aftidii dastuurka dalkaasi Turkiga magaalada Ankarana waxaa min bilow ilaa dhammaad natiijadii la socday wariyaha BBC-da Mark Lowen waxa uu sheegay in heese iyo damaashaad sidii Bashiir sheegayayba ay ka soconayaan xarunta xisbiga aka dalka xukuma waxa ku sii qulqulaya taageerayaashii madaxweynaha oo la rumaysan yahay in madaxweynaha awood loo siiyay dalka in uu ka sameeyo isbedel siyaasadeed kii ugu weynaa ee Turkiga soo maray waqtiyadan casriga ah hayeeshee mucaaradka kama degin natiijadu xisbiga Republicanka midka Kurdiyiinta dhankooda u janjeera ee HPD iyo madaxda dadkii u oleynayay maya intuba waxay qabaan 60% codadka la dhiibtay dib in loo tiriyo waxa su'aal ka keenan 2 milyan iyo bar cod waxa kale oo ay ku doodayaan mucaaradku 1 milyan iyo bar in aanay waxba ka jirin codadkii ay dhiibteen waayo waxa la wada siiyay bay yiraahdeen qolada waa tahay bal aan eegna mucaaradku saacadaha soo socda ilaa iyo beribal waxa ay ka yiraahdaan iyadoo haatan aad moodo natiijadii aftidii dastuurka ee dalka Turkigu in ay raacday dhinaca madaxweyne Erdogan halkaasna isbeddello xoog leh dastuurka lagu sameyn doono halkaad nagala socotaan